wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno aqoon-yahan Cabdiweli Maxamed Qarboobe oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku takhasusay dhinaca xisaabaadka iyo waliba cashuuraha waxaana uu maamulo ka yahay shirkadda Cabdiweli Maxamed CPA oo xarunteedu tahay magaalada Seattle ee gobolka Washington waxaana uu halkaan u yimid gobolka Minnesota oo soo u yimid inuu seminar ka baxsho magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka ku xeeran sidoo uga qabtiri lahaa qaabka ay xisaabaadka ay u sameyn lahaayeen isla markaasna ay ugu badbaadi lahaayeen dhibaatooyinka ka ratima qofka haduusan taxiga bixin ama uusan fahmin qaabka taxiga loo xirayo Cabdiweli ayaanu waxa sharaf noo ah inuu nagu soo booqdo stuudiyahayaga magacaygu Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil waxaan ka codsanayaa in ay la soo dhaweysaan aqoon-yahan Cabdiweli Maxamed Qarboobe. Cabdiweli soo dhawow. waan dhawaad Cabdixakiin mahadsanid adiga iyo bahda SNTV ba. Cabdiweli intaanaan hawl kale u gulin horta bal Cabdiweli waa kuma mahadsanid Cabdixakiin. Cabdiweli waa kuma Cabdiweli waa nin dhalinyaro ah ku dhashay magaalada madaxnadii wadankii Soomaaliya Muqdisho khaasatan xaafadii xiradii loo yaqaan Hafsiyoone laakiin se ku soo barbaaray wadanka Mareykanka khaasatan magaalada Seattle Washington halkaas ayaan iskuulkayga dhexe iskuulkayga sare shahaadada koowaad iyo shahaadada labaad iyo shahaadada loo yaqaan CPA aan ku wada qaatay. soo Cabdiweli waa ninkaas waa nin iska dhalinyaro ah waa nin iska ciyaal xaafada ah hadii aad dhigi karto waa gartay bal waxay wax noo martaa xisaabaadka iyo qaabka dalkan oo soo hayaanay waanu nimid laakiin dadka inta badan ma fahansana qaabka cashuur celinta ama xisaabaadka sida u shaqeeyaan. wala horta Cabdixakiin waa su'aal muhiim ah xisaabaadka haddii aan dib u laabanaa fasirno annaga markii aan Soomaaliya joognay dawladdanada burburkii ka sokay dawladdu waxay iska jirtay adiga wax ka yar 30 sano ba iska ahayd ganacsigana markaas ayuu soo korayay waxaa laga yaabaa waxyaalaha hadda ku soo cusboonaaday ganacsiga guud sida wadamada galbeedka in uusan waagaasayto uusan la jaan qaadin dawladdanada taasoo tahay marka qaarkood dadka inta ka ganacsanayo waxaa laga yaabaa inay caqabado u geynaya xagga faham darrida ah maxaa kamid ah weeyaan tusaale ahaan caqabadaas waxaa kamid ah marka uu qofka ganacsi furanayo oo isdiiwaan gelinayo waxaa jiro hab loo raaca jiro gobol kastana uu ka duwan yahay hal tusaale ahaan aniga gobolka Washington baan deganahay markii aad isdiiwaan gelinayso toddoba nooc oo ganacsi ah baa isku diiwaan garan kartaa gobolkaada Minnesota wuxuu leeyahay 8 nooc buu leeyahay soo inaad garataa nooca aad ka diiwaan gelinayso markii aad ka diiwaan geliso ka bacdina waxaad u gudbaysaa sidee xagga cashuuraadka iska diiwaan gelinaysaa ka bacdina waxaa imaanayso xisaabtii waa gartay maxay kala duwan yihiin marka ganacsiga toddobada ama 8 ah wuxuu kala duwan yahay sida ay rabto tusaale ahaan maanta waxaad ka mid ahayd dadkii martida noogu ahaa seminaarkanaga tusaale ahaan dadku wuxuu noqon karaa ganacsada yar ganacsada dhexe ganacsada weyn noqon karaa dadkanaga badankood waxay u badan yihiin dadka loo yaqaano small businesses ama ganacsadaha yar ganacsadihii yaraa baadana la sii kala qaybinaya qofka wuxuu noqon karaa iskii shaqaysta ama waxa loo yaqaano sole proprietor ama wuxuu noqon karaa iskaashato laba qof ama couple isku biirtay ama waxay noqon kartaa shirkad ama hay'ad weyn sida shirkadaha weynka adduunka camal ka shaqeeya halkan gobolka Minnesota Best Buy iyo Target iyo waa shirkad weyn saas camal ayaad isku diiwaan gelin kartaa haddii aad rabto inaad ganacsiga aad bilowdo waa gartay ahmid intee buu leeyahay ganacsigu inuu leeyahay xisaab ama habraac xisaabaad ahmid aad iyo aad weyn sababtoo ah waxaa kamid ah horta markuu qofka ganacsanayo qofka waa muwaadin ama waa muwaadin Mareykan ama waa qof deganaansho ku leh Mareykan ku leh wadankan wuxuu ku dhisan yahay canshuur buu ku dhisan yahay canshuurahana waa canshuuro badan way oo kala duwan yihiin waxaa kamid ah canshuuraha shaqaalaha waxaa kamid ah canshuuraha loo yaqaan dakhliga adiga ku soo galo waxaa kamid ah canshuurta khaaska oo adiga laga qaado shakhsiyan ah soo sababtaas ay daraadeed bay u tahay muhiim inaad taqaano canshuuraha waxaa kamid ah hadda camal oo kale markii adiga aad ka shaqeynayso shirkad ka shaqeynayso canshuur baa laga jiraya kamida oo shaqeysna canshuur baa laga jiraya labaas canshuur qofka ganacsadaha ayaa haynayo oo ku haynayo bangigiisa ku haynayo waa inuu lacagta sayto u gudbiyaa waaxda canshuuraadka saas ayay hortahay waxaa kaloo jirto markii adiga aad soo bandhigayso dakhligaada iyo qarashka ka baxay iyo faa'iidadaadana
lacag baa lagu lahaan karaa canshuurta waxay ku xiran tahay habraaci aad isku diiwaan gelisay markaad bilaabaysa ganacsigaada baa lagaaga qaadaya canshuurta soo nidaamka xisaabta ah waa lafdhabarka waxaa la dhigaa waa lafdhabarka xisaabaadka iyo canshuurta marka aad bixinayso waa gartay khataraha ka ratimi kara hadduusan qofku uusan nidaamkaas raacin wax badan baa ka mid ah tusaale ahaan waxaan aad soo bandhigayso waxay u dhigantaa hanti qaran weeyaane canshuurta waa hanti qaran weeye dee qaranka markaad qaladka gashana qaranka wuxuu xaq u leeyahay inuu ku ciqaabuu leeyahay ciqaabaadkaas u badnaan karaa ciqaab yar ciqaab dhexe iyo ciqaab weyn waa maxay ciqaabaha yar tusaalahan waxaa ka mid ah ganaax inuu ganaaxo ganaaxaas wuxuu ku xirnaan karaa canshuurtii aad bixin lahayd inta ama dhigmato ganaaxa dhexe waxaa laga yaabaa in ganaaxaas iyo wax kale laga xayuubiyo ama sida camal hantidaada oo kale camal oo kale tusaale ahaan waxaa laga yaabaa lacag bangiga kugu jirtay in laga xayuubiyo oo aadan access aad u lahayn oo aadan qaadan karin ilaa aad dowladda soo xaajooto tan ugu daran oo weyn oo ciqaabta ah waa adiga oo mutaysto xabsi iyo muxuu ahaa ganaax xabsigaas badankiis wuxuu u dhexeeyaa 2 sano ilaa 5 sano ganaaxaasna wuxuu u dhexeyn karaa ilaa 250,000 laakiinse waa mid kasto waa ciqaab gooni ah buu leeyahay waa gartay inta badan dadka Soomaaliyeed waxay dhex uga soo dhaceen bad sharciyo hore lahaa system hore lahaa inta badanna wadamada aan u soo hayaanay wadamada Mareykanka waxa lagu qiyaasaa wadamada ugu furfur badan uguna fursado badan nidaamkan xisaabaadka iyo maaliyaduna waa waxa dawladda iyo dalku uu ku taagan yahay maxay tahay dadka Soomaaliyeed aysan fahansanayn aad leedahay khatar baa ku soo wajahan waa aad seminaarka aad u qabanayso xakam horta Cabdixakiin oo seminaarkan minabis kaliya kama qaban sanadkii hore ayaan bilaabay waxaan ka bilaabay magaalada Columbus awalna waxaan ka bixin jiray magaaladeeda waxaan dareemay asxaab badan ganacsatayaal baa iga soo waco Mareykanka gudihiisa ama ha ahaato magaalooyinka waaweyn sida Columbus oo kale Minneapolis oo kale adiga meelaha u badan yihiin Soomaalida dibkana waxaa weeyaan arintu markay xaajada ka baxday bay soo wacaan waxay dhahaan Cabdiwaliyow waan ugu dhigan yahay ayrestaan haysato ama gobolka cusubta gobolka haysato walaalow kaalay bal adaan ku maqlay inaad waxaan aad iga caawin karto iga caawin markii dee runtii aan wareysto oo xogtooda helana badankood waxaa u moodaa inay u geysay aqoonlaha baa u geysay taana waxaa weeyaan markuu bilaabay ganacsigiisa uu aas-aasay dadkii aqoonta u lahaa sida abukaataha ama xisaabiyaha anoo kale xirfadlaha ahaa ama qof kale oo loo yaqaano la taliyaha xagga hooshalka muusan hayargaranin heshiisyadii muusan qoran waxa loo yaqaano operating muusan qoran taasoo ay tahay ganacsiga furtay number buu soo goostay xafiis buu helay qandaraas buu helay jaaj shaqadii waa bilaabay waxa uu soo dhacayo dakhli qarasha ka baxayo faa'iido dhibka jiraa wuxuu yahay systemkii hagi lahaa waxa seeto badankood ma haystaan waxay isticmaalayaan un waa account maxaa soo galay maxaa ka baxay bangi statementigaas ayaaba system u ah oo ninkan systemka habraaca ma haysto waxaa laga yaabaa boonooyinka uu ku soo adeegtay inuusan tixgelin uu lumiyo uu tuuro hadhow sanadka markuu dhamaado oo aad soo bandhigayso wixii ku soo galay wixii kaa baxay iyo faa'iidadii iyo wixii ay kaa rabi lahayd dowladda qofkii wuxuu gelayaa inuu wax qiyaaso gelaya tusaale ahaan baan ku siinaya hadda waraaq cad baa halkaa meeshaan taallo dad waxaa arkaysaa waraaq buu soo qoranaya wuxuu leeyahay bishaan sanadkan waxaa soo gal lacag gaarayso $100,000 camal oo kale oo qoran tahay waxaa ugu qoran kilo wuxuu ku qorayaa $1,000 lagu ruftay 12,000 wuxuu qoranayaa supplies 6,000 iga baxday waxaa iga baxday xafiis 5,000 nambarada dhan waa nambar cayiman weeye waa 6,000 waa 7,000 6,000 saantaa furjaa waxaan dhawarniyo xataa $10 xataa kuma jirto miya oo 6,000 iyo $10 ma aha miya macnaheedu waxaan ka wadaa qofkaasayto qof diyaarsaday ma system waa qof maskaxda ka soo wax kas ka soo guuriyay weeye oo ku soo wadaa markaad waxa buuxiso waa bandhigto tusaale ahaan haddii dowladda hanti dhowraha dowladda ama tan gobolka ahaado ama tanaha dalka ay ku baaraan adiga lagu leeyahay waxa soo qorta noo soo cadee haddii tusaale amal ahaan cadeen aad keeni weyso dowladda waxay xaq u leedahay in wixii ay bedesho ay ku tiraahdo kharashka soo qortay waa badisay waa yareynaynaa ama isagana ma diidaynaaba waa diidnay therefore
canshuur dheer ku saaraynaa canshuurta waxaan saaraynaa ganaax iyo ribaan saaraynaa hadhowba waxaa leedahay saan ma ahan waa doodaysaa dooda furan tahay laakiin maxaa lagaa rabaa marka taxadatay waxaa lagaa rabaa wax cadeymaa lagaa rabaa hadda maanta seminaarka waxaan u sharaxaya dad badanoo saan ku dhacay oo aan u raadinay cadeymo aan ka raadinay dukaamihii ka adeegan jira ama kale qaarna waa naga aqbalay qaarna ma naga aqbalin waayo waa caddayn weyne so mararka qaarkood dadka waxaan kula xifaaltamaa waddankan waa taqaanaa markii aad dembi gasho ilaahay dembi kuma geliye baa waxaa lagu leeyahay dembiile ma tihid ilaa lagugu caddeeyo dembiga ama sida loo yaqaano you're innocent until proven guilty soo ma laakiinse markay noqoto habka dhaqaalaha iyo noqoto wuu bedelan yahay because waxaa lagu leeyahay dembiilaa tahay xagga canshuurta dembi maaha laakiinse waxay u dhigantaa maxay dhahaan waxaa lagugu soo rogay dembiga lagugu soo rogay waxaa tahay eedeysane hallo waxaa tahay eedeysane xagga canshuurta ah baa tahay maadaama aad tahay eedeysane naga soo garbax waxyaalaha aad soo qoratay noo soo caddee haddaad noo soo caddeyn weysay eedeysanta isku dilaysaa inaad tahay eedeysane laga guulaystay wixii lagu soo xukumana aad bixinayso bay u dhigantaa soo waxaas xukumaa tusaale ahaan qofku marka fursad intee buu haystaa ganacsigiisa 4 sano 2 sano 1 sano intee ilaa uu haystaa allo system waa system cusub waa runta waddankuna waa waddan macnaha ogol in qofku uu dhaqaale abuuro oo system abuuro qofku fursad intee lagu haystaa horta ganacsi kasto iyo shakhsi kasto kiiskiisa ama galkiisa 3 sano furan yahay 3 sano wuu furan yahay 3daas sano dib baa loo laaban karaa tusaale haddii maanta sanadkan ku jirno oo 2023 la baaro xaq xoolada inay u laabato sanadka 2022 marba waxaa laga yaabaa 3 sano inay tacabku ku furan tahay xaq bay u leeyihiin sida adoo kale adba xataa xaq waxaa leedahay haddii lacag dheeri kaa qaateen inaad dib u laaban karto 3 sano aad ka heli karto rabbiyo ma garatay soo gartaa so fursad saasaad jirto dhibaatooyinka badanna waxaa weeyaane waxaad ka hadashay fursad muxuu leeyahay markii lagu dhaho waxaa tahay eedeysane dowladda waqtiga ku siinaysaa waqti uu kala duwan yahay wuxuuna ku xiran yahay meesha aad marayso tusaale ahaan marka u horeyso waxaa lagu siinayaa 30 beri inaad kusoo jawaabto dadka badan waxaan ku dhahaa haddaadan xataa caddaynhayn ka jawaab waraaqda oo box baa jiro taabo waxaad tidhahdaa waxaan maya box waxaa 3 box waay boxkooda waxaa lagu leeyahay waxaan soo qornay ma nagu raacday do you agree with waxaan soo qornay mise nagumada raacin haddaadan nagu raacin caddayn noo soo raaci ama qaar ka mid ah ma nagu raacday iyo waxaadan nagu raacin taa noo caddee dadka waxaan ku dhahaa si farsamo reer magaalnimo ah haddii xataa aad caddaynhayn box ka mid ah kuwaasayto oo ah ama kuma raacsani ama qaar baan ku raacsanahay xataa intaad taabato walaaqay warbixina raacay dir macnaheedu waxaa waaye 30 biro ka jawaabtay so xaqada ku shaqeynaya tii bay qaadanayaan tii bay fiirinayaan haddana ku soo jawaabayaan waxay ku leeyihiin waxa soo dirtay kuma qanacsanin moogta waa ka jawaabtay hada baa socda laakiin marka iska dhageytirtay albaabka la soo garaacaya wal gaar doona haasato so wada hadalkaasayto baartayna socdo markay ku diidaan xaq waxay u leeyihiin inay ku diraan racfaanka baa qaadanaysaa haddana racfaankii haddaad diiddo xaq howlada in aado maxkamadda canshuurta famino 3 jeer baa lagu siinayaa fursad inaad dowladda aad xaqaad u doodo inta badan nidaamkan xisaabaad iyo systemka uu ku shaqeeyo xisaabaadka uu ku shaqeeyo waa system ku cusub dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii hore dadkii halka ku koray ama ku barbaaray oo ama ku dhashay halka ku dhashay ama ku barbaaray waxbay fahmi karaan laakiin dadkii waaweyn waxay isku dayaan inay dadaalaan oo ilmahooda ama dadkooda ay u sameeyaan ganacsi hore ay u leeyihiin dadkaas maxaa ilaalinaya ayaga والله وحا هرتي إله بيعلن كرو إله كسكونا وحا إعلان كرو دد أنا وكلاء ولا تريال واه صار أهان أبو كاتي أما CPA
ama la taliya xagga dhaqaalaha baa yeelan karo muxuu ku ilaalinaya way su-aasha markasta uu su-aal qabo xagga ganacsiga ah tusaale ahaan waxay noqon kartaa cabdiweliyow shirkaddan faa'iido xaddaaf ah soo bisay markaan fiirino canshuur dheeri ah ayaan sanadka hore soo bixinaa sidee baan canshuurta u yareyn karnaa annaga oo tix raacayno sharciga iyo dastuurka u degsan dowladda maxay noqonaysaa soo abukaatihii CBA-gii waa isku nimaanaynaa qorshaan dejinaynaa oo ah tusaalahan maxay ka mid tahay waxay ka mid tahay waxaan dhihi karnaa adiga waxdii ma isugu celin kartaa ma garatay se maxaa waaye waxyaala waxaa jiro xuquuq aa u leedahay oo benefita sida dhaqaale benefitka howlgabka camal oo kale ah ama loo yaqaano 401k loo yaqaano waxbaa meel laga kartaa taasna shirkadii baa bixinayso shirkadii baa qarashkeeda ku siiranayso soo howlo badan baa jiro waxyaalaha kale hadda inaan suubiyo waxaa waaye awal markaan waxaan soo bandhigi jiray waxaan ku soo bandhigi jiray luqadda ingiriiska hadda waxaan bilaabay inaan u bedelo luqadda soomaaliga taana waxaa u kalafay codsi ka yimaada bulshada waa fahmayaan luqadda ingiriiska laakiinse waxaa uga sii fiican inay ku fahmaan tada afkoodii hooyaa waayo waxaa laga yaabaa qofkan soomaaliga ama ha degnaado Iowa ha degnaado ama ha degnaado Texas markuu u tago qof kale oo ajnabi ah oo gaala oo aan ku hadlaynin luqadiisa waxaa laga yaabaa in erayada qaar ka mid ah intuu fahmi waayo uu hadhow uu iska gaaro go'aan hadhow asaga liid ku ah laakiinse markii qof anoo kale ah oo aan wixii ugu turjumo luqadiisii hadhow wuu ka digi doonaan karaa kumana degdegi karo inuu canshuur dheeri bixiyo waa ku soo noqonaynaa fayda wadayaal iyo dhegeystayaal aqoonyahan cabdiweli maxamed qarboobe oo gobolka Minnesota maanta qabtay seminar ayaa waxa uu ka yimid gobolka Washington gaar ahaan magaalada Seattle oo ah magaalada saddexaad oo Soomaalida Mareykanka ay u badan tahay ardadii qaadatay casharadii maanta qaadatay qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin casharka ay qaateen bal waxay nala dhageysta magacaygu waa Esther Cali Ciise magacaygu waa Kawsar anna waa Hilaal Maxamuud waxaan isugu nimid maanta oo ka qayb qaadanay cashar uu noo dhigay Cabdiweli Maxamed oo nooga yimid Seattle Washington oo lagu baraayo dadka businessyada leh sidee maaragtay taksiyada u xareyn lahaayeen khaladaadka isaga ilaalin lahaayeen cashuurtooda u faal gareysan lahaayeen aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadanay maarta seminaarkan Assalaamu calaykum magacaygu waxaa la yiraahdaa Kawsar caawa waxaan isugu imaanay wada kulan aan aad uga helay oo aan ka faa'iideysanay tax iyo preparationka iyo programka by CPA Cabdiweli Maxamed Qarboobe ayaa caaway halkan waxyaalo badan xikmado badan inagula share gareeyay oo wax badan ka fahanay waxaan qabaa inay familiyada iyo dadka Soomaaliyeed oo wada businessyada leh inay ka faa'iideystaan opportunities of free oo qof macnaheedu ku takhasusay experienceska aanu naga maqan saan dhibaatooyin iyo hadhow waxna looga qabsan in our businesses iyo in our endeavors in the future nagu imaan karay kuwii aan lahayn macnaheedu cilmi korsanaya opportunity weyn weeyaan waxaan aad ugu mahadnaqaynaa inuu Seattle nooga imaaday anigoo magacayga Hilaal Maxamuud maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay bandhigii uu noo sameeyay walaalkeen Cabdiweli Maxamed oo CPA oo ka imaaday magaalada Seattle waxyaalo badan oo taxi ku saabsan oo IRS-ta ayuu maaragtay aad noo fahansiiyay oo luqadeena af Soomaaliga uu ku hadlaayo oo si fiican sharciyada wadanka yaala iyo wax qofka business kale looga baahan yahay marka aad aan ugu faraxsanahay wax badan waan ka faa'iidnay aad u mahadsanyahay way kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah ardadii maanta ka qayb qaatay seminaarkii uu soo bandhigay aqoonyahan Cabdiweli Maxamed Qarboobe oo ku qabtay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaasna ay ganacsato waxay ahaayeen yaryar oo ka helay sida casharka uu u siiyay soo iyagu uga mahad celiyay runtii bal casharkaas iyo ahamiyadda uu leeyahay iyagoo ka codsaday in casharo badan uu markasta u soo bandhigo aad aad mahadsantiin aan dib ugu laabto saaxiibkii Cabdiweli Maxamed Qarboobe Cabdiweli waxaad tahay waxaad ka digaysaa dhibaatooyin soo laalaabtay oo bulshada Soomaaliyeed ku habsaday maxay tahay fartiinta aad leedahay aad la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed Cabdikariim hadaabay marka ashar bixinay hal hays baan iri ama waxaan iri tusaalahan waxaan iraaday sida aad salaadaada uga taxadir canshuurtaada ama ganacsigaada maxaa ula jeedaa salaadu waa farad ilaahayna faray weey waa ilaahay waa wax annaga nagu xukuman weey waa waajib ku saaran weeyaan canshuurtana
waa waajib saaran muwaadinka wadankan degan ama qofka xataa haysto deganaanshaha haysto waxa uga digaya waxaa weeyaan Soomaalida waxay yiraahdaan xaajo markay faraha ka baxday dabada lama qaban karo laakiinse xaajo waxaa la qaban karaa intaysan faraha ka bixin soo qaban kartaa markuu sanadka dhamaanin hadda saarahan bisha maanta October way waa bisha 10aad weeyaan sanadka waxaa noo haray 2 bilood qofkii xataa qofkii ama ganacsigii hadda aan xisaab aan dhigan ama aan diyaarsan 2 bilood u hartay 2 bilood buu dib u laaban karaa is habeyn karaa is diyaarin karaa wixii ka qaldama uu sixi karaa laakiinse markii ay imaado bishii cashuur celinta ama bishii xiritaanka den bongi waa xiran yahay lacagihii ma kala bedeli kartid haddii canshuur badan aad bixin lahayd dib uma laaban kartid oo qarash ma sheegan kartid because waqtigaad joogto waqtiga waa kaa xiran bueno so waxyaalaha badan waxaa dadkii ayagii oo aan diyaar garoobin system waqti ku dhacaya hadhowna wuxuu ku leeyahay Cabdiweli wax ila hagaaji maxaan kula hagaajiyaa adaa wixii hagaajin waaye dadka waxaan ku dhahaa badan waxaan ku dhahaa markaad fiican tahay baana fiicnahay sababtu ma ahan aqoonyahan baan ahay inaan wax kasto aan erka keeni kara ma ahan waa inaan xeer raacaa maanta anaga sharaxeena xeer baad digsan xeerka waa inaan raacaa haddaad xeerka raacina dee badankood adiga ayaa ciqaab wajahayo so waxyaalaha aan uga digo dadka badankood waxaa waaye si saxsan oo saafiya u buuxi canshuurtaada markii lagu soo diro arji ama codsi ka yimaaday waaxda canshuuraadka ama loo yaqaano arasta loo yaqaano ka jawaab haddaada ka jawaabin oo aad ka aamusto waxay go'aan ku gaarayaan in lagu leeyahay lacagta lagu leeyahay haddaad bixin weyso oo 3 jeer waraaq lagu soo diro oo aad ka jawaabi weyso haddana maxkamad lagu diray maxkamadina aad qabsan weyso 9 kaas bari oo shib aad tiri oo aad ka dhigtay dhagool ama iska dhigtay waxaad arkaysaa maalin maalmaha kamid ah adigoo inta bangiga aaday ama ATM kaarka meesha geliyay yiri $100 la soo bax oo lacag aad la bixi karin oo ayaaban tirada waa waray xalan bafiirnaa bangiga aad ku jirtay maxaa ku dhacay intaad ka baxdo ATM ka laan gasho aad ku tiraahdo ninka bangiistaha muxuu u shaqeyn lahayaa kaarkayga maxaan lacag la bixi lahayaa markuu fiiriyo wuxuu ku leeyahay lien baa saaran accountkaada oo linka yaa saaray linka waxaa saaray IRS saartay ama gobolka Minnesota revenue saartay oo maxay u saareen annagu ma naqaano waana la amray micnaha lien dadka u niho lien waxaan ku fasiri karaa tusaale ahaan hantida markii lagu leeyahay ama hantida markii laga xakameeyo ama laga cunaqabatayn xajidan ama lacagta amal la cunaqabatay cunaqabatay la saaray waxba kala bixi kartid waxba ma galan kartid so adigi oo mushaar shaqaalaha ka sugaayeen adiga tigada mushaar sugaysay guriga bilkis sugaysay lacagna ku taala bangiga aan la bixi karin ka waran waa iskada dadka waxa ugu diga dhowr jeer bay dhacday ee ku dhacday dad Soomaaliya iyo ajnabi ah ma sahlano sida looga bixinayo waa laga bixin karaa laakiin waqti bay qaadanaysaa waxaa laga yaabaa dhowr isbuuc hal bil laba ina qaad waxaan dawladdu weeyay adigli kuma shaqeyso dad badan bay u shaqeysaa soo arjiga aad qorayso waxaa laga yaabaa 3 bari ka bacdi in la aqriyo ama 6 bil ka bacdi la aqriyo 6daas bilood account-kaada waa noqotay yahay ama xakamada baa saaran waa gasay cashuuraadku waa tirabay farqiga u dhaxeeya dalka Mareykanka cashuurtiisa iyo dalkeena muxuu yahay Cabdi Xakiino ma ilaaha caayo kowde waa dhulka cirka waxa u dhaxeeya weeyaan waa isku dhow waxaan isku dhaweyn waxa weeyaan canshuurta u degsan wadankaanayto Mareykan waxa lahaa waa canshuurta ugu adag dunida ugu adag weeyaan taana waxa loogu talagalay in qofka muwaadinka uu ka faa'iideysto wadana ka faa'iideysto laakiin labadina yaa idin dhaxayo xirfad leh oo idinka laha hagayo dadka waxaan ku dhahaa ana muhiimadeeda waxa weeyaan in hantida aan ilaaliyo oo $1 dheeri ah inuu si xaq darra kaaga raacin dawladana waxay xaq nagu leedahay in ayadana xaq ay leedahay annagana aan raacin wada shaqeyn dhinaca xirfadlaha dhinaca dawladda gacan ha marka waa system isku xiran weey dadka waxaan ku forjay waxaan dhahaa anigu dan iigu ma jirto inaan maanta check weyn u qorto dawladda waa qof walaalkay baa tahay hantidaada waa rabaa inay ku beegto laakiin adna ogow inaad tahay muwaadin dawladda xaq ay kugu leedahay oo xeerkan ay dhigatay anta aqbal sida ayaga bay u aqbashay
inay wax kugu soo celiso tusaale ahaan hadda dib u laabano waagii cudurka cabuuqa uu ilaahay keenay dowladda waa furtay accountkeeda waa xasuusataa wixii loo yaqaanay PPP-ga loo yaqaanay waxaa la bixinayay grantiyaa la bixinayay dowladda waa soo celisay canshuurahooda hadda xataa canshuuro dheeriyaha jiro oo dadka loo soo celinayo so marna waa lagu xoqayaa marna waa laga xoqanaya marka waa inaad faa'iidada dhinacaaga aad ka bixisaa absolutely waadan wixii adigu isku koobin ha waayahay daawadayaal iyo dhegeystayaal barnaamijkeena gaarkaayo uu martida noogu ahaa aqoon-yahan cabdiweli maxamed qarboobe waan idinla socodsiinaya anigoo cabdixakiin cabdi ismaaciil oo idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota inta ayaan kusoo afirayna dhinaca farsamada iyo kaamirada waa saaxiibkay korneyd iyo bilaal oo idinkaha qabtiraya dhinaca farsamada barnaamij inta hawa duuda ugu kulma doona waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo aad u mahadsan الله ما حكيم ما سنت اوكي